marka su'aalo weydiinaysa waxyaabaha dhaxayaan waxa kamid ah dadkaasi fa alqaw salama ma kunna na'malu min suu warnimayo maana wax sameyn jireen nadaaya bala inna allaha alimun bima kuntum ta'malun fadkhulu abwaab jahannam khalidina lalah nabigu marka wuxuu ka sheekay malaa'iktaasi markay ninka u timaado يا وحيلا يا أيتها النفس الخبيثة نفيها يحنتي الصبح إلى غضب الله على إله الصبح اللي عرض والله تويكه الرئيسان نارتي وجيلا وحول مركب النبي نفسه وفكر على رئيسان مرة بطئنا بحضه جد كيس الدبو وعرض ملائكة مركب وحيوة تنبور نبو كلاليب تحوي سلسلة مركز انت هلك عقب العالم بإله الله حوق وقسو جيدا يا نفط ولهذا الدين كان لغو أركي ضدك أهل النار مركب نفط كبحي سوا كعباد بدنيهين كو صالحين تا وأرماءات قصص عجيبة وعيبة جراوها وشا قصابسا مرهرة مشاهدة ضلال المحاضرية قبر صومالية وكان أهان جرت النارس كينيا جوغ جرت جاء اسبتال كينيا كوقرنا مركة وحي كوقرنا القريب نفتا مركة قف قب حيسو اسلا قبردي بالله سوا قاضي سعودي قال لك أنا شقا كان شيء اسلا قيبتي بالله مقرية ضد مركة جيريون ايان أنا قبردي بالله فريستي وحيث إبراهيم مركة كينيا جوغي ما لنت وقف لهم علينا يو جيريون ايو dadban baa la soo diyaariyaa horta sariirta waa lagu xidhay bay afartiisa xubnood waa lagu sii xidhaa markay dhaqaatiirtu leeyihiin saacado kadib uu dhimanaya nin security xoog badan waa la keenay bay tiri annagana waa nala diyaarin meesha dhan istaan baa la gelin bay tiri maxaa yeelay ninkan dagaal buu galaya saacada geeridu ku timaado waxay tiri isagoo intaas oo dhan ku xidhan iyo intuu xarkaha goosto oo sariirta rogo oo qalabka oo dhan ka tuuro yaa cabaadkiisa iyo saxarada iyo kaadida iyo wuxuu isku daray isbaalka dhan baa halaabayay hadda waxa la keenay tir markii Sacuudiga oo ka shaqeeya waxay tiri dadkooda xarigna lagu ma xidho securityna looma yeero in badan oo kamid ah soo iska qoslahayo buu bilq naftiisa waa ka baxay tiri kuwa barkood iyagu subhanallahi iska hayo iska sheekeenayo buu qalaq naftiisa waa ka baxay ma macnaheedu dadku inay saalixiin yihiin laakiin waxaan ka hadlaynaa nabiga sheegay dadka gaalada nafta inta ku kala cararteen xoog lagaga saaro markii nafta xoog lagaga saaro bal hada fiir kuwa kale wanaagsanaa buu nabigu barbar dhigay wuxuu kuwa wanaagsanaa markay halka joogan labadii albaab loo furaya kii jannada iyo kii naarta waxa la leeyahay naarta booskaas aad gali lahayd haddaad ahlu naar noqoto aad adduunka wax kharibi lahayd laakiin maadaama aad ka leexatay hadda halkaas aad galaysaa jannada markaas waxa loo soo dirayaa nabigu malaa'ig aad u qurux badan oo dhar qurux badan qabta oo udgoon ka soo urayo hadalkay kula khidaabayaan fiir ama say ula hadlayaan ya ayyatuha an-nafsul mutma'innah ارجعي الى ربك راضية مرضية اسلوبك لو لحظة اسلوب عجيبة نفسها في عني صبح صلابة ولبا لان نفط اصل كده حاجة كتمت من السماء الهي حقيسا كنمت ارجعي بس صلابة الى ربك راضية مرضية الله رالي ولا رالية نبي وحوري مركو اركقف في الجنة ماشي وكلية يا نفتيس وحيلا ددجية اسارة ابحية مركز وحوري سيدي بيوه اشمان وقلي وقشم ميسا اخواني قف كان سيدا ربنا انه نقضه كل جوان ربنا سوما والله شقا كسكيس حدان ربنا معلنتا ان سيدا لانوغو بشاريه ويغيدي سيداني معها اخواني ويغيدي معها انا نولوشن كجرنو ويغيدي معها انا سيدان كو نولانو culimadu waxay dhaheen qofkii qafladu ay ku dhacdo maqnaanshahan hadda ku jiro oo kale saddex shay ba isagoo adduunka nool lagu soo dedejiyaa oo sharci koow taswiifu tawba inuu tawbada dib u dhigo bal hadda u fiirso dhalinyarada waxa la warinayaa salaada tukatid wuxuu kaleena hadda dhalinyarada markaan aanu nin aan noqdo aabahay oo kale markaan gaaro waa arki doontaa waan tukanayaa walaalay ma xijaabati gabadhi waa kale waxa kale hadda inaan baanahay waa inaan ismuujiyo markaan guriga yeeshaan arki doontaa saan u xijaabto qafladu jirooyinka keentay kamid tahay nin halkan jooga shaqaysta la warinayo diinta islaamka ma barata miskiin ku tukatid wuxuu ku leeyahay laba sano Mareykanka lacag ka urursanaya kawda Soomaaliya tagi doona masjid ana ba dhisi doona hadda lacagta masjid ka dhisi doona halkaasna waa arki doontaa saan jaamacada ba gali doona taswiifu tawbada oo dib loo dhigo waxa keenay qaflada hadda dadka hadda inta badan waraysato wuxuu ku leeyahay salaada tukada waan jeclahay inaan soomo waan jeclahay inaan miskiin joogo waan jeclahay laakiin waxba iga haysta waxa ka haysta waxa weeye jirro la yiraahdo taswiifu tawbada oo dib loo dhigo jirro ku haysata غفلة أنا كانت عذرك كلاء كانت غفلة وحوي ترك الرضا بالكفاف قفك أو وحا يرقو قنعوان الهدوء في سايكنك قفك صومالي يجوغ ما أنت هدي لي هذا قف بشرة جرا أو بشي صدح كون أو دولار قاطم حاضر ملايين إنسان إله من اللي كل هذا مكة قحوتية ذا جوغتين كو رمى هدي لي قول هذا المشاركة أو بشي وصدح كون أو دولار هذا قحوتية ذا جوغ سيكو رأهي وح مسكح لك كوي صوما قناعة قلبي قاعد كجرتي حدنا ما أنت فرق بلا ما صدح كونه دولار قاطع بالويدين ولا شو كونه ليه
عدم الرضا بالكفاف عذر وحاكو على قناعة على آن ليله وحكو لي نيو وحان انتان wax urursado inaan business galo business kiina lacag lagu ma gali karo boqolku wax ka yar oo boqolku marka urursad intaas rabtaa inaad sii shaqaysato business marka ku gasho walaalo tobanku ma ku filan qaado la tobanku maanta wax ma tarto boqolku marka gaadho waxa ku dhahayaan ma taqaana hadaan la helin 10 min boqolku isku darsato 1 milyan lama business ma suurowdo markaas ku leeyahay ilaa aan 10 helo min milyan min boqol ma soconaysa lagu leeyahay midba bay ku sii dhiibi nin odayahan ESL wada dhigan jirnay Soomaaliya yani ESL ka wada dhigan jirnay duqnimo wuxuu ka qabo kursiga ku tukadaa ma fadhiisan karo mana rukuuci karo mana sujuudi karo sidaas weey ESL ka dhigan jirnay markaas waxa la yiri goolkaagu muxuu yahay marka ardayna la weydiinayo wuxuu yiri anigu 7 sano dhakhtarnimo aan baranaya kadibna wadankayga aan kaga shaqeynaya kursigu ku fadhiya fadhigaas rukuuci sujuud waa garaab wuxuu ku leeyahay 7 sano marka ESL ka baxo oo PhD dhakhtarnimo aan qaadan doona marka kadibna wadankayga aan kaga shaqeyn doona horta marka la fiiriyo goolkiisu kuwa badan buu ka fiican yahay laakiin bal fiiri himada adduunka uu hayo وسي وينتها يتي اخر سي ماشي uga maqanta waxa ila adeer hatta jumcada miskiin ku soo tukan jiray waxa adeer ma jumcada la soo tukatay xul adeer kursiga ay waxaana dadka ku dhibaan diidanahay oo waxa galaaska inaad ku dhibto ma diidanide muslimiinta kursiga diidanay maxay inaad jumcada ugu la tukato dad badan ba kuraas ku fadhiyeen ahmiyad uma leh marka tani jumcadu laakiin waxa ahmiyad u leh 7 sano dhakhtarnimo ah ESL ka markuu dhameeyo inuu galo ikhwaani marka waxaan leenahay tarku rida bil kafaaf qofka haday qafla ku dhacdo wax yar ma deeqo gabar Soomaaliyeed waxa arki markii Soomaaliya la joogo shilin aanu soo gali jirin ninkeedu biil bas uu siin jiray halkan markuu yimid ay la yimid la boqol waxbay kala qortay meel waxay ku qaadataa baashi la dhihi jiray xaraan inta wax isdaba mar sabareed lacag caydina meel ka qaadataa meel way shaqaysaa kaligeed baa income waxa soo gala $1500 hadana ninkii bay isfurayaan maxay isku furayaan dhaqaale oo istagii bay leedahay hadana wax keen adag shaqada inuu soo shaqaysay uu daayay ko cayd iyo caruuri balaayo wax ku qaadato uu daayay laba laga yaabo xataa biil uu siiyo waxay leedahay bay check dhan baa igu soo wareeji لن كما في الله هل كان إيمانك هل كانوا كجرا موقته ترك الرضا بالكفاف يقول الصومالية وأشقى ينك اللي قال بيل جيت وما قالوا إنه كوي على مايكروسوفت ذلك يعني نوش كيني وهذا مركب باكي كي جاري صور دكتين جاري يقول إنه أمة ذكروا تب معنا لا ينسي صار يعني استقوا تب $1 يوكسين بعدين بخيل لمزيزة وأني كمان مايكروسوفت إسكاله إلا القناعة هل كان يكون جرا موقته إيمانك يدرك وهل كان ما هذا العكس السبب قفكي غفلة يكون عظم ترك الرضا بالكفاف بلغ وايا جهده صدحاده او كان يحوي التكاسل في العباده عباده ku cuslaanaysa qofka alghafilka ah wala yaal cibaadada ku cuslaata qofka marka aan ghafilka ahayn cibaadada hadan sii wadno waa baab hada uu badaranba qof waliba wuxuu ku leeyahay niyo hadii shaqada afarta la yiraahdo hal ka ama saddexda shaqada waan kici karaa buu ku leeyahay saacad hadaan buuxsado laakiin salaada subax saacad hadaan buuxiyo xataa ma kici karo maxaa keenay ma taqaanaa وغافل ومقيه إلهي بنا حسوسنين قفك دون إلهي حسوسنين وحكون على التكاسل في العبادة قبل وحكول يا شيخ وان حجاب ناجري وان فيعنا حضر إنا حجاب توان ربا لكن وحن بقي علينا وحكا علينا ولا الحوي وغفلة عذر كان وحاكينا غفلة وحكا انت عذر هذا ودن قفك العبادة يكون إصلاح بنعك لو حكا العلماء قفك غفلة كبحة إلهي آخر مرة البحسوستا قلبي يسو جلع سنيه أويا مساجد الدين وجعل كل حرم خيرات في قيب قاطع وحنا صدح شيء إلهي كأرزقا يسوى النار وصدح من أبسيط كذا تعجيل التوبة إلهي وحب برا التوبة دق ما أنت مركو قف قلب إسلا عاوة إسلا قلبت كسر نقنا يا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ما أنت قف حمنا يا إسلا ما أنت رادين يا هبل تلفون أدر رياض ولا لا وانك ربي يقرأ الله ولا لا ما أنت وانك حنتي إلهي ولا مركز كله ولا لا وانك سامحي تعجيل التوبة غلط ما كدعي كل الناس خطاؤون ضد قفوا كدعوا زينوا كل عيان وحكوا له هو عادي بوي فرن قال فرن سو عادي معه كان قفلوا كل على اساس يقول كان كلام حكوا له بقى هو مريكا بو كتغيا افرسن كسعو اويا nin sheekh marka dhageysanay qiso uu ka sheegay nin dhalinyaro oo soo toobad keenay nin fiican buu ahaa weliga xumaan buu nasameeyay dhalinyaro xun buu la saaxiibay iyaga waxay ku qalqaaliyaan in keen aan safarnay oo meelaha Asia aan Taiwan iyo meelaha aad maaqa waraacay hotel ba iska degeen iyagu intay baxaan bay balaayo soo qastaan isna hotelku iska sii jooga maalintii dambe waxa la yiri ilaa moogtay shayaadiintu حتى هذا ترى صاحبا إذا الله أهان وحنا إذا لما سمعنا يكرر لك من نقولنا شيطان قال له ورنكني إنهم أناس يتطهرون وحس ظاهرة يمين كفي عينه وأنا كل ردان بل هذا أفرسه إنه واحد أركي سيجار كله يسكت جوجي يهربا
لكن كوح صاحب بولا يكون أقدارا مرة الله لما يكون أقدارتان بسنا شتاء صاحب السوء